الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu joognay fatrat alwaxy iyo waqtiga ay culimadu ku sheegaan inuu waxyigu xoogaa kala go'ay ay ku tilmaamaan inuu ahaa waqti Ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa ta'ala inuu nabiga u diyaariyay inuu si rasmi ah u aqbalo waxaynu nidhi markii hore waxyi ku soo degay si fajaab ugu soo degay waxaanu soo tilmaamnay inuu aad u baqayay nabigu calayhi salaatu wasalaam ama uu naxnaxsana kadibna khadiija iyo waraqat ibn nawfal ay dajiyeen waxaynu kala soo sheegnay futuurkaasi waxyiga ama waqtiga uu go'naa in araa kala gedisan ay culimadu sheegaan laakiin min xayth sanad aan waxba ka asixin 40 casho ibn Abbas baa loo tiiriyaa waliya qaarkoodna 3 sano iyo 2 sano iyo bari waxbay sheegayaan صاحب الرحيق المختون waxaynu nidhi isagu markuu xoogaa isku duduway wuxuu ku tagay ba aragtay wuxuuba 10 cashayn ahaayeen waataynu nidhi 22 Ramadaan buu markuu xisaabiye u qaatay inay tahay maalintii waxyigu soo degay ilaa iyo Shawaal tabanayada casha iyo waxyigu go'naa buu leeyahay waqtigaasi waa markay soo degtay yani fatuurkan ama waqtigan waxyigu ayaynu sheegaynaa waa waqtigii u dhaxeeyay iqra iyo mudathir qaybteedu hore intay soo degaysay culimada siira ama culimada tafsiir qaar kamidina waxay soo arooriyaan mar saddexaad inay jirtay laakiin markaa saddexaad waa aad bay daciifatay waa qisada ay u soo arooriyaan in nabiga su'aal la weydiinayay ruuxda iyo ay kamid yihiin masaayishii kahafkii iyo waxa la weydiiyay oo dabatana insha Allah intuu ilaabay 15 cashay qaatay xadiiskaas isagoo daciif ala kulli xaal waxay culimadu isku waafaqsan in futuur jiray waa kanu iqra iyo mudathir inta waqtiga u dhaxeeyay waxaana la isku waafaqsay inaan waqti badan ahayn walidaalika hatta ibn hajar waladan sanadaha sheegaysa iyagu sanadkooda waa daciif walidaalika ibn hajar laftiisu wuxuu ku tagay inay waqti kooban ay ahayd kadib ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ka soo socda xadiidkii saxiix al-bukhari sidoo tilmaamayo isagoo ka yimid taxanufkiisi waa waqtiga uu leeyahay saaxib ar-rahiq al-makhtuun shuwal bilowgeedaas bay ahayd isagoo ka yimi meeshii uu ku taxanusi jiray ama ku tacabudaya ama uu ku cibaadeysanay ku khalweynaya gaarka ugu baxayay oo soo socda ayuu wuxuu maqlay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa loo yeedhay dabeetana wuxuu leeyahay waxaan eegay midigtayda waxba waan ka arki waayey waxaan eegay dhanka bidix waxba waan ka arki waayey xagga hore xagga dambe dhan walba waan eegay buu yidhi waxba waan arki waayey markii dambe ayaan kor eegay buu yidhi dabeetana dushayda ayaa waxaan arkay buu yidhi malagii godka igu yimi waa malakul jibriil oo kursi ku fadhiya bayna as-samaa'i wal ard dabeetana faju'istu minhu ru'ba buu xadiisku tilmaamay waana cabsaday buu leeyahay aad baan uga baqay ilaa aan dhulkaba ku dhacay dabeetana khadiija ayaan u imi buu yidhi anigoo le zamiluni dathiruni wa subbi alayya ma'an barida anigoo le baan imi buu yidhi idada oo biyo qabowna waliba igu shuba anigoo sidaa le ayaan u imi buu leeyahay khadiija waa la daday markaasi markii la daday biyo qaboobaaya wax lagu shushubayna waxa soo degay aayadkan quraana ee suuratu mudaththir ugu horeeya oo Allah subhanahu wa ta'ala ilayhi ya ayyuha almudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujsa fahjur aayadkaas baa soo degay wala tamnun tastakthir oo Ilaahi subhanahu wa ta'ala uu mabda'u ar-risala ugu dhiibayo yani iqra waxay culimadu yiraahdaan nubuwada ayaa ku bilaabantay risaaladu ama diristiina tanbay ku bilaabantay ilaahay leeyay qum faandir ya ayuha almudaththir balid war midkan istuuduubayo qum faandir kacba ilaahay leeyay subhanahu wa ta'ala oo faandir dig yani kan istuuduubayo ba ilaahay leeyay subhanahu wa ta'ala kaanama loo tilmaamayo waqtigii dafciga iyo raaxada iyo hurdada iyo nasashadu iyo ceeshka haniiga ee mutaaxa ay waqtigiisi waa dhamaaday arrin weyn baa lagu faraya ka coodi waa sifar runtii qof kasta oo raba inuu xambaaro risaalada tan looga baahan yahay oo qofka risaalada xambaaraya inuu ku talagalo inuu xambaarayo arrin aad u weyn oo aan isku cuntamin inaad nin guri noqoto iyo inaad nin golo noqoto yani nin guri inaad ahaato guriga iyo xaaska iyo carruurta iyo intan koobciso koolkooliso iyo inaad risaaladan xambaartaa waa isku adagyiin ولذلك بقى إلهي وحو النبي قال يا أيها المدثر كان اسدوضوبا يوبا إلهي سبحانه وتعالى قم كعبا ليلي وفأنذر دق وددك ودق
waa shaygii koowaad ee la faro inuu balaaq dadka gaadhsiiyo ka labaad ee takliifkii aayaadkani tilmaamayaan waxa weeyaan warabbaka fakabir inuu isagu naftiisa ku dabaqo qadiyadda tan oo arrintu waxay ku kooban tahay ama ku duuduuban tahay inuu qofku ilaahay weyneeyo subxaana wa tacaala iyo ka dambeeyo idan dadkana u dig baa la yidhi adiguna naftaada ka bilowo warabbaka fakabir alla weyney subxaana wa tacaala khusu bitacdiim oo cidna ha la wadaajinin masaladaas waa masalo u baahan iyaduna ahlu dacwo inay aada ugu fiirsadaan oo ah waa madkhalka dacwada laga galo madkhalkan waa indaar iyo tacdiim alle subxaana wa tacaala in la weyneeyo oo dadka qulubtooda lagu weyneeyo qofku markuu caqiidaysto ee yaqiinsado ee uu rumeeyo weynida alle subxaana wa tacaala ayaa hoggaansankiisu fududaanaya yacni in badan waxaa laga yaabaa abnaa saxwa aljadiida inay isku dayaan masaalixda waxaa laga helaya waxaan inay dadka in badan u sharxaan laakiin waxaa ka habboon in dadka lagu weyneeyo ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda haddii uu qofku ilaahay qalbigiisa uu ku weynaado wax waloo kalaba markaasi wuu ka hormarinaya shirki iyo waxaasoo dhanna wuu ka dheeraanaya idan madkhalka ama meeshii la yidhi dacwada ka gal waxa weeyaan warabbaka fakabir walidalik baa in badan qur'aanka waxaad arkaysaa iyadoo masaa'ilkaasi ilaahay iyo weynidiisa iyo tacdiimkiisa in badan uu qur-aanku ka sheekaynayo yani haddaad u fiirsato qur-aanka imise goorba khalaqa asamaawaati waalarda ama sakhara alleyla waannahaara ama waxa alla abuuray iyo qudradiisa iyo awoodiisa waxaa la yidhahdaa tawxiid arububiya markuu qofku si fiican u qoro ayay daba socotaaba tawxiid aluluhiya warububiya tawxiid aluluhiya wa tawxiid alasmaa wasifaat yacni ilaahay weynidiisu markay qofka qalbiga degto ayaa addoonsiguna bilaabmaa markaa inuu qofku cibaadadana alle u keli yeelo subxaana wa tacaala wahiyaabaka fatahir baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala waa waxyaabihii nebiga la faray ee labaad maradaada daahirsa baa la yidhi hiyaabka kan culimmada qaarkood waxay ku tilmaamaan ku macnawiya laakiin labadaba cumuumankiisaynu ugu qaadaynaa wa hiyaabaka dharkaaga fatahir daahirso dharkaaga iyo jidhkaaga iyo najaasaadka iyo mustaqdiraadka ka fogow idan haddii muuqaalka sare uu yahay in la tahiro waxaad iska garanaysaa muuqaalka hoose in la tahiraana inuu ka wenye qalbiga in la daahir yeelo oo kow shirkiga iyo najaastiisu shirkigu waa najaaso inama almushrikuuna najas baa ilahay yidhi najaaso ka weyni gaalnimo ma jirto idan najaasaadka macnawiga abaa ka weyn najaasaadka xisiga ah yacni najaasaadkan layska uskagan iyo kaadidan iyo xaarkan iyo waxa kasii daran oo ka qurhmuun oo ka kudaafad badan kuwa macnawiga ay ugu horeysa gaalnimada iyo munaafiqnimada iyo wixii la halmaana saa awgeed baa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wahiyaabaka fatahir dharkaaga daahir yeel oo daahirnimadaasi ta muuqaalka sarena lagaa rabo ta qalbigaana lagaa rabo oo ay ka mid tahay inaad shirkiga ka fogaato oo ay ka mid tahay akhlaaqda xun dhammaanteed inayd ka tagto walidalik baa iyada ilaahay gaar usii tilmaamo waxaa la yidhi wاrujsa iyo wاrijsa labadaba waa laba qiro saxiixe wاrujsa fahjur xumahana rijsigu asliyan waa cadaabka ama sakadka ilaahay cadaabkiisa iyo cadhadiisa wixii keenaya o dhanna ka fogow waxa keenaya ilaahay cadhadiisa iyo cadaabkiisuba waa macsidiisa waa ilaahay oo la caasiyo kaana ka fogow baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala idan qofka muslimka ah waxaa kaloo alla uu nebiga yidhi walaa tamnun tastakir masaladanina waa masalo u baahan ahlu dacwa aayaadkan inay aada sharxooda u fahmaan baa ku fiicantay walaa tamnun tastakir ha galladaysan baa wax la yidhi adigoo badsiinyo ku raba yani waxaa la tilmaamaya waxa kan inaad ilaahay dartii u qabato ikhlaas inaad u qabato hadduu noqdo tilka bitilka waxaad adna ku rajaynayso markaad waxaan samayso dadku iyana inay ama ku weyneeyaan ama magac kuu yeelaan ama aad hanti kaga heshid ama aad caynka kaga heshid ajarkii aakhira waad waayeysaa walidalik baa waxaa ku aragteen qur-aanka inta badan maa asalukum calayhi min ajrin isagoo nebi waliba leh nebi waloo lasoo dirayba wuxuu leeyahy war anigu hadda dan gaaro aan idinkaga leeyahy ma jirto ilaahay ku xidhma markaan idin leeyahy ilaahay ka cabsada markaan idin leeyahy danaan idinkaga doonayaa ma jirto idinma lihi madax iga dhigta idinma lihi daba socda idinma lihi wax igu siiya idinma lihi jaah iyo mudnaan iyo waxba toona idinkaga dooni maayo waa sunnat alambiya ducadda waxa fiican markaasi dadku inta badan bini aadamku tuhumu iska qabaa war ninkan waxaan uu idinku yeedhayo ama sharcigan uu leeyahy raacun arma isaga dani ugu jirtaa ama armuu madaxnimo ku doonaya ama armuu sidan ku doonaya armaadaasoo dhan waxay ku fiicantahay in marka hore la sheegay inaad waxba kaga doonaynin walidalik baa ilaahay nebiga markuu u bilaabayeyba waxaa la yidhi walaa tamnun tastakir
ha galladaysanin adigoo badsiinya ku raadinaya oo wax kaga doonaya. walirabbika fasbir baa ilaahay ugu gebagabay. ariiqan haddaad marto waxa hubaala inaad dhib badan la kulmi doonto. walidaalika wuxuu u baahan yahay sabir. sabirku waa waxa shay inuu midho dhaliyo sabirunbaa u asala. waxaan loo sabrini ma midho dhaliyaan. wax kasta oo la rabo midho la goosto in laga helo waa inuu noqdaa wax loo sabray oo loo gaadiiday. laakiin haddaad xamaasadda hore iyo xufxufta hore ku rabto wax waliba inay ku saxmaan, waxba kuma saxmaan. walidaalika baa ilahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala walirabbika fasbir. alle ama rabbigaana wixii dartii kugu soo gaadha ee dhib ee mashkilad ee kaa hor yimaada taana u sabir baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala oo in badan u dulqaado. aayaadkani markaa waxay tilmaamayaan waa laba qaybood. qaybi waxa weeyaan balaaq iyo indaar la leeyahay dadka waxu sheeg. qaybta labaadna waxa weeyaan wuxuu isagu ku dhaqmi lahaa iyo qaabku noqon lahaa qof kasta oo raba inuu dad waxu sheego oo diin xambaaraana waxa looga baahanya inuu si wanaagsan u fahmo. aayaadka koowaad ee risaaladii nubuwada ka hadlaya runtii wax badan bay dadka u taageerayaan. nabiga calayhi salaatu wasalaam aayaadkaas ayaa alla ku soo dejiyey. dabeetana noloshiisii waxaynu leenahay 20 sano in ka badan ama dhowr iyo 20 sannadood ayuu qaa'im ahaa oo aanu raaxaysan oo u taagnaa inuu alle subxaana wa tacaala diintiisa dadka ugu yeedho oo dhibi ka soo gaadhay oo wax waloo ka soo gaadhaba uu ogolaa inuu ugu dulqaato. waxay culimmadu halkan tilmaamaan waxoogaa ay kaga warramayaan waxyiga iyo qaababkii uu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu ugu soo degay. waxyigu saynu hore usoo sheegnay waxa ugu horreeyey qayb ah alru'ya saadiqa, in riyo dabeetana dhacdadaasi uu sideeda u arki jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu riyoodo ah. qaybta labaad waxay ahayd in uu malag qalbigiisa ku afuufo oo waa kii nebigu xadiiska maalan saxiixa ku tilmaamayey ina ruuxu lqudus nafata fii rawci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha faاtaquu اllaha waajmiluu fi طalb walaa yaxmilanakum istibطaaءu الrisqi calى an taطlubuuhu bimacصiyaة اllah fainamaa cinda allah laa yunaalu ila biطaacatih. yani nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ruuxu lqudusku oo malakuljibriil ah wuxuu rawcayga ama qalbigayga wuxuu ku afuufay inaan nafina go'i doonin arsaaqdeedu ay dhammaysato mooyaane. arsaaq weligaa ha ka warwarin. intii lagu katibay adigoo dhammaystira mooyaane naftu kaa bixi mayso kuna weydaaran mayso. ee ilaahay ka cabsada buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo doonistana fiicnaysiiya. xaaraan iyo xalaal midkaad ku raadisaba intii ka badan mayso. laakiin wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ajmilu alab, doonista wanaajiyo xalaal ku raadiya oo risqigaa naga raagaya ayuu idinku kalifin inay ilaahay macsidiisa martaan. ilaahay agtiisa waxa yaalla arsaaqda dee ilaahay baa bixiya. ilaahay agtiisa waxa yaallana dee isaga raalli ahaanshihiisa lagu doonaa. ilaahay inaad wax ka doonto haddana aad doonto inaad macsidiisa kaga maroojisataa way adagtay. idan maadaama ay gacantiisuun ku jirto oo cidda wax laga doonaya isagaa un tahay waxaa habboon inaad si fiican uga doonto oo si xalaala aada uga raadiso. idan xadiidkaasi wuxuu tilmaamaya u nebigu leeyahay rawcayga ama qalbigayga ayaanu malagu ku afuufay. waxaa kaloo qaab saddexaad uu nebigu waxyiga ula kulmi jiray ah inuu malagu ugu yimaado ka rajul isagoo ah oo si caadiya ula hadla oo saxaabada ag joogtaana ay maqlaanba, sidii xadiidkii cumar ee macruufka ah wada garanaysaa ee uu lahaa nin marya cadcadsisto caynkaasoo soo galayo dabeetana uu ag fadhiistay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo wax weydiiyo uga jawaabo. markii dambe uu ka tegeyna uu nebigu ku yidhi kaasi wuxuu ahaa jibriil oo diintiina idin baraya. oo xataa bacdu saxaaba ay leeyihiin dixyat ilkalbi saxaabigii la odhan jiray suuraddiisoo kale ku iman jirayba. qayb afraad baa jirta oo uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam intay saxaabadu weydiiyeen siduu waxyigu kuugu yimaadaa ayuu wuxuu yidhi mila silsilati ljars, dawanka yeedhistiisoo kale mida oo dhawaq hulula, waana nooca nebiga ugu adkaan jiray calayhi salaatu wasalaam. noocaas markuu waxyigu ugu imanayana xataa iyadoo qabow oo baraf ku dhacayo ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam dhididku dacladiisa ay ka di'i jireen oo hadduu awr fuushan yahay ratigu wuu cuslaan jiray oo wuu fadhiisan jiray dhulka. bale axad asaxaaba zayd waa kii tilmaamayey maalin maalmaha ka mida iyadoo bawdada nebigu ay saarantahay buu leeyay yani adinka nebigu isagoo igu tiirsan ayaa waxyigu bilaabay inuu kusoo dego buu leeyay.
adinkiisiiba intuu igu cuslaaday ayaan xeji kara ilaa bawdada ay iga kala jabi gaadhay buu leeyahy adinkuba way kala jabi gaadhay waana nooc ugu adkaa ee nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyi uu ku soo degayo nooc shanaad baa jira uu ugu soo degi jiray oo ah inuu suuraddiisii asalka ahayd uu ku arkaba taasina iyadoo 2 gooro qurun bay dhacday nabiga calayhi salaatu wasalaam malakul jibriil suuraddiisii asalka ahayd 2 jeer buu ku arkay sida suuratu najmi baa ilaahay kaga warramaya 2 jeer buu kula kulmay waxaa ka mid ah bay yidhaahdeen waxyiga siyaabuu nebigu kula kulmay in uu alle subxaanahu wa tacaala u waxyooday fawqa asamaawaati 7 waa markii la dheelmiyey alisra walmicraajkii markii nebiga la dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam ee malakul jibriil meel go-an uu ku hadhay wuu dhaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam cinda sidrati lmuntaha wixii loogu soo waxyooday waajibaadka salaadu ay ka mid ahayd iyana qaabka gedisan bay ahayd xadiiث اlisraa oo masaa'ilka uu sheegayana waxa weeyaan inuu alle toos ula hadlay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii nebi muuseba uu tooska ugula hadlayay siyaabahaasi waa siyaabaha ay tilmaamaan inuu waxyigu nebigu ugu soo degay mushaafaha miyuu u qaatay miyuu isagoo alle arkaya subxaana wa tacaala la kulmay masaladaa salafku waa isku khilaafsan yihin oo waxay ka dhambaamataa qadiyadda ah nebigu alle ma arkay mise ma arag habeenkaasi la dheelmiyey laakiin sida saxiix ee raajixa ahi waxa weeyaan inaanu arag markaynu intaa soo dhaafno nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhahaa muddo ayuu diintii faafinayey laakiin waxa uu u faafinayay muddadaasi hoos muddadanuu hoos u faafinayay yacni muu iclaansan ee dadka ayuu dooranayey wuxuu dooranayay dadka caqliga badan leh dadka dadku wax ka maqlayaan dadka isaga wax ka dhegaysanaya dadka rumaysan ee usilay u raacayaan markiiba mujtamac ayuu kala dooranayay markaasi fardi fardi iyo qof qof iyo midhmidha ayuu wax ugu sheegayay muddadaasi intay ahayd wax sanadoo saxiix kuma soo aroorin inta badan dadku waxay sheegaan 3 sanadood laakiin 3 sanadood waxaa sheega waaqidina waa mutaham iyo ibnu isxaaqna biduuni sanad buu ku soo arooriyey markaa ma soo aroorin wax xadidaya baladari ninka la yidhahdo isna taariikhda qora 4 sanadood buu sheegaa calaa kulli xaal in waqti noocan ay ku socotay jirtaa waa xaqiiqa iyada layskuma khilaafsana ilaa iyo intay nusuustii dambe waandir cashirataka alaqrabiin ay soo degaysa ama fastax bima tu'mar midaad tidhaahdaba aayaadkaasi intay ka soo degayeen ama taxdiidka waktiga ah culamaai taarikh inta badan 3 sanuun bay sheegaan laakiin min xayu alxadiid haddaynu sanadka eegno ma sugna sanad ahaan waktigaasi uu nebigu siriyada waxu waday ee uu hoosta waxu waday dad badan ama dad waxoogaaya ayaa diinta aqbalay waxaynu naqaanaa cumuuman dee ciddii ugu horraysay ee nebigaba dejinaysay ee sheegaysay inaanu bele la kulmayna waxay ahayd khadiija ficlanna waxaynu leenahay khadiiji ciddii ugu horraysay oo saabiqiinta islaamta ayay ka mid ahayd waxaa kaloo cidda saabiqiinta ee rumaysay nebiga ka mid ahaa sida xadiidka tirmidi uu sanadka saxiixa ku warinayo cali bn abi aalib oo la yidhaahdo 10 jir meelahaasu ahaa wiil yar ahaa dadyawga hore uu rumeeyey waxaa ka mid ah zayd ibnu xaritha saxaabigii la odhan jiray ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam markii hore tabaniyey ka caadadii carbeed siday ahayd zayd ibnu xaritha yacni wuxuu ahaa nin isagoo meel maraya baa la afduubay dabeetana waa la qabsaday waa la gaday addoonnimaa loo iibsaday khadiijo akhiiran iibsatay dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam bay siisay nebiguna wuu tabaniyey markaa tabanigu waa caada aljaahiliya intaan qur-aanku soo degin suurat alxazaab aayaadkii ku jiray tabaniga mamnuucayay qofku intuu qof ilmo qaato inuu ula dhaqmo sidii ilmo uu dhalay oo looguba abtiriyo carabta caadada waa iska lahayd yacni ilmo asliyan aanu dhalin ayuu korsanaya haysanaya ilmahaasaa uu qaadanayaaba dabeetana waa loogu magac daray waa kan gaaladu ilaa hadda isticmaashay adabshanka ay ku tilmaamaan fi shariica laakiin ma banaana oo markii dambe waxyaa soo degay diidaya masaladaasi waa walaaladiin le islaamnimo ku koriya laakiin qofna ayaan aabihii laga dafirin ciddii dhashay unbaa dhashay wiilkaasi oo nebiga calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ciddii joogtaya isna wuu islaamay waxaynu odhan karnaa cumuuman xaafadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkii joogay waxay ka mid ahaayeen dadkii ugu hor islaamay hadduu yahay cali oo nebigu korinayey hadduu yahay khadiijo xaaskiisiiya hadduu yahay zayd ibnu xaritha oo ah ninkaasi uu nebigu tabaniyey xataa waxaa la tilmaamaa baraka umu ayman islaantii la odhan jiray oo iyana dee ahayd baa islaantii uu uga dhintay
addoon aabihii uga dhintay oo haystay islaan xabashiyada bay ahayd islaan madow oo xabashiyada laakiin waxay ahayd dumarka ugu khayr badnaa mid ka mid ah kuwa dadku nebigu aadka u jeclaana way ku jirtay saxaabadii waaweynaaye macruufka ahaana way ku jirtay umu ayman islaantaa la odhan jiray waana islaantii nebiga soo korisay ee soo xadaanaysay yani may nuujin laakiin way xadaanadiisa ayay ka qayb qaadatay waana usama islaantii dhashay usamata bnu zayd iyada lafteedu dadkaa hor islaamay bay ku jirtay khaarija beytihi markaynu eegnana dadka kale ciddii ugu hor islaamtay waa abubakr sidiiq saxaabiga la odhan jiray oo ay markii horena saaxiib ahaayeen waa dadkii ugu horeeyey ee islaama yaa u hor islaamay marka la xadido riwaayaad badan oo kala gegedisan baa soo aroora siday isugu xigxigeenna riwaayaad kala gedisan baa soo aroora walidalik bay culamada qaarkood waxay isku dayeen inay jamciyaan waxaasoo dhan ay ku jamciyaan fikrad odhanaysa dumarka khadiija ugu horreysay caruurta yaryar cala ugu horreeyey addoomaha dadkii ahaa zayd baa ugu horreeyey raggii waaweynaaye mudakarkaana abibakar baa ugu horreeyey waa marka nooc min jamc ay isku dayayaan in loo ururiyo abibakar dadkan u horeeyey islaamay inuu ahaa ibnu kaiir maalan wuxuu ka istinbaada xadiidkii sheegayay maalintii intay saxaabadu abibakar iyo axad saxaaba baa murmay waxaan rajaynayaaba inuu ahaa cumar bin khaaab abibakar khayr allah siiyo saxaabi weyn buu ahaa saxaabadana dee muslimiintana nebi maxamed dabadii ninka u fadli badan buu ahaa laakiin nin aada kulul buu ahaa markuu cadhoodo nin aada u sharaarad kulul ayuu ahaa markaa maalin bay isqabteen cumar waxoogaa baa la yaro murmay dabeetana abibakar oo yaro xanaaqsan buu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka cadhooday in abibakar laga cadhaysiiyo dabeetana wuxuu nebigu ku lahaa ina allaha bacanii ilaykum faqultum kadabt waar ilaahay baa dad iyo ikiin soo diray buu yidhi dabeetana waxay igu tidhahdeen buu yidhi been baad sheegaysaa abibakarna waa runtaa bu igu yidhi run baad sheegaysaa ii daaya buu lahaa abibakar yani nebigu calayhi salaatu wasalaam abibakar si gaar ayuu ula dhaqmi jiray walidalik buu saxaabadoo dhan lahaa abibakar ma raba gaadhaysaana iska dhaafa ninkan hala ii daayo abibakar markaa waxay leenahay ragga uga hor islaamay buu ka mid ahaa kadib abibakar ayaa isna sacyiyey oo islaamka dadka ugu yeedhayey qofka muslimkaa dhaqanka lagu yaqaana waxa weyaan wixii khayre soo gaadha muslimiinta kalena ugu gaadhsiiya islaamku saasuu ku faafay islaamka ma faafiyaan culama un yani culamadu waa ahlulcilmigii masaa'ilka cilmiga iyo wixii diinaya cilmiyaa la weydiiyaa laakiin qof waliba uu garanaya inuu dadka ku yidhaha war laa ilaha illa allah dhe iyo alla ka boqo iyo ilaahay caabud iyo macsida iska daa qof aan garanayni ma jiro idan qof kastaaba hadduu rabo inuu intan dadka gaadhsiiyo waa gaadhsiin karaa bal in aad wada garanaysaan baa jirto in badan oo aan garanayni jirto haddaad rabtaan in salaada la barto inta masaajidka joogta salaadda saa loo tukado badiba waa taqaana in badan aan aqoonba saa loo tukadaa jirta intaa ducaad baa unoqon kari lahayd inaad salaada bartaan say u tukadaan iyo ilahay say uga cabsadaan iyo idan diintu waa shay u baahan dadku inuu wada ilaashado muslimiinta oo dhami walidaalika abibakar markiiba wuxuu bilaabay isna dacwo firfircoon oo inuu dadka kala gaadhsiiyaan dabeetana waxaa soo islaamay saxaabada waaweyn ee casharatu almubashiriin ragga intooda badani gacanta abibakar baabay ku islaameen baa la yidhaha calaa kulli xaal raggii waaweynaaye ee muslimiinta ee islaamka soo galay markaasi waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu cafaan iyo zubayr ibnu cawaam iyo cabdiraxmaan ibnu cawf sacd ibnu abi waqaas طalxa ibnu cubaydillah raggaas baa ka mid ahaa iyo amiinu hadihi اlumma abu cubayda bnu اljaraax raggaasi markay soo islaameen weliba waxaad moodaa in ay taarget in la qabtay qabaa'ilka o dhan in wax laga islaamin karo yani waxaad moodaa quraysh reerihii kala gedisnaay oo dhan inay nimankani ka kala tirsanaayeen maalan cuثmaan ibnu cafaan oo kale nin umawiya buu ahaa reer bani umaya nin ka tirsan zubayr ibnu cawaam oo kale nin asdiya buu ahaa cabdiraxmaan ibnu cawf iyo sahd ibnu abi waqaas oo kale reer bani zahra bay ahaayeen طalxa ibnu cubaydullaahi oo kale nin taymiya buu ahaa yacni waxaad moodaa jilibadii ay qurayshi ka koobnayd oo dhan in la waajahay cid walba sidii cid looga soo heli lahaa si dacwadu aanay u noqon mid reer gaara un reeraha kalena yidhahdaan waa wixii reer hebel wateen oo ay iska fogeeyaan reer gaara un ku koobnaata ayuu reerahoo dhan si isleeg ugu waajahay dad badan baa markaasi islaamnimada kolba cidi soo gashay dad yawgaa u hor islaamay waxaa ka mid ahaa markaasi abaa cubayda ka mid ah isaguna reer banu xaarisa waxaa ka mid ah abu salama ibnu cabdilasad almakhzuumiy iyo haweenaydiisii umu salame saxaabayaddii la odhan jiray waxaa ka mid ahaa alarqam ibnu abilarqam almakhzuumi
waxaa ka mid ahaa cuثmaan ibnu madcuun oo jumaxi isna u dhashay raggaas oo dhami cubaydata ibn اlxaariث ibn cabdilmualib ibn اlmuطalib ibn cabdimunaaf dad badan baa soo islaamay saxaabo dhowra marka laga warramayo saabiquuna alawaliin ilaa 130 dad gaadhaya baa la tilmaamaa oo rag iyo dumarba isugu jira laakiin kolley waa soo kala horhoreeyeen siday u soo kala horreeyeen axaadiis sanadkoodu saxiix iyo tiro badan baa ku soo aroortay laakiin riwaayaadku ay iskhilaafsan yihiin oo maalan axaadiista ka warramaysa oo kale abi dar alkhifaariy goortuu islaamay oo kale ama damaad oo kale ka warramaysa ama ka warramaysa yani saxaabadii badan ee soo islaamtay ee noociyaadka kala gedisan u soo islaamay dhowr baa sheeganaya maalan raabicu arbaca inuu ahaa kii afraad inuu ahaa ibnu kathiir iyo marka ay kulminayaan ninka la yidhahdo ibnu xajar alcasqalaani waxay leeyihiin axaadiistan o dhan waxaa lagu kulmin karaa bay leeyihin dacwadaas siray ahayd maadaama ay siri ahaydna lama garanaynin kii soo hor islaamay nin waliba wuxuunbuu 2-3 yaqaanay mooyaane wuxuu islaamanadaa ku afara laakiin maadaama wuxu ay sir u socdeen waxaanu calan ahayn kolba cid lala hadlayo kolba qofku soo islaamayuun midba un dhowrkan uu yaqaanay ama la xidhiidhay unbuu moodayo in isagu afreeyey markaasaa laga yaabaa dhowr inoo kala gedisan inuu axaadiis ka soo aroorto nin waliba uu leeyahay raabicu arbacaan ahaa kii afreeyey baan ahaa waa fii xuduudi cilmihi bay leeyihiin dad kaloo muslimiini oo badan baa jira walow qoyskaa gurigaa nebigana ha noqoto calayhi salaatu wasalaam qoyskao quraaba dee maxay ah marka la sheego khadiija iyo cali iyo zayd marka la sheego saddexdaba looga inay goor hore islaameen abibakr haddii lagu daro dee afartiiba halka waa joogaanba saa daraaddeed waxaad odhan kartaa axaadiista raabica wada sheegaysa waa fii xuduudi cilmi ayuu mid waliba ka warramayay dadyaw badan baa markaa islaamay dadyawga maalan saabiqiinta ka mid ahay aan laakiin quraysh ahayn waxa aynu soo sheegno o dhame waa quraysh saciid ibnu zayd iyo haweentii uu qabee faatime ay cumar bin khaaab walaalahaayeen iyo khabaab ibnu ard saxaabigii la odhan jiray iyo jacfar ibn abi aalib iyo haweenaydiisa ee asmaa bintu cumays la odhan jiray iyo khaalid ibnu saciid ibnu alcaas iyo haweenaydiisa amiine la odhan jiray iyo kuwaasoo dhamme goor horey soo wada islaameen dadyawga aan ka mid ahayn camaar ibnu yaasir iyo kooxahaasoo dhamme goor hore islaameen dadyawga aan ka mid ahayn quraysh ee islaamay waxaa ka mid ahaa cabdillaahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray oo hudali ahaa iyo mascuud ibnu rabiica oo qaari ahaa iyo cabdillaahi ibnu jaxash dadyawga lasii tilmaamo waxaa ka mid ahaa maalan suhayb ibnu sanaan oo ruum u dhashay camaar ibnu yaasir oo canis ahaa iyo aabihii iyo hooyadii ninkii addoonkii caamir ibnu fuhayra la odhan jiray fuhayra abu fukayha miya may addoon ma ahayn caamir ibnu fuhayra baan rajaynaya raggaasi waxay ka wada mid ahaayeen aduu raggii aan quraysh ahayn ee soo islaamay haweenka aan quraysh ahayn ee islaamay iyagana waxaa ka mid ah umu ayman aynu sheegnay haween badan baa islaamay maalan abibakar oo kale gurigiisaba waa laga wada islaamay ilaa caaisha ay lahayd gurigayga anigu wuxuun baan caqliyaystay buu lahaa reerkuba isagoo muslima reerkayga isagoo qof gaaliba ku jirin ayuun baan anigu caqliyaystay dadyawga hore u islaamay waxaa ka mid ahaa asmaa bintu abibakar oo kale dad badan baa islaamay wax cibaadaada oo soo degay oo macruufoo xoog loo garanaya ma jiro bacd culamaai taariikh ama bacd alculamaa sa ibnu xajar oo kaliyaba waxay ku tagaan qabla alisra walmicraaj qaطcan in salaad la tukan jiray ay jirtay alisra walmicraaj 5 salaadood baa soo degay laakiin ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay qabla alisra qaطcan salaad la tukada baa jiray caaishana dee waabata laga wariyey riwaayaddaa salaaddu marka hore laba ay ahaan jirto markaasaa laga dhigay 4 calaa kulli xaal salaad culammadu inta badani waa sheegtaa in salaadii uu jiray la tukan jiray weliba subaxii iyo habeenkii in la tukan jiray ama طuluucu shamsiga waktigaa iyo qabla guruubiha meelahaasi oo kale in la tukan jiray salaada baa la tilmaamaa axaadiista iyagu sheegaya waktigaa in jibriil markiiba waysada nebiga bara iyo kuwaas iyagoo axaadiis iska sanadkooduna aada u liito matnigoodana nakaaro badan ay ku jiraan oo qaadasho badan ma leh nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu muddo dacwada sidaa waday ayaa waxaa la faray inuu dacwada kor ugu dhawaaqo waxaa soo degay aayadda qur'aan ee waandir cashiirataka alaqrabiin inkastoo baan filayaa mufasirkii abari oo isagu fasdac bima tu'mar aayaadka uu leeyahay aayaadkaasaa jahriga keenay ayan kaanat
waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ku soo degay maalan aayaadkan waandir cashirataka alaqrabiin ka tilmaamaya suuratu shucaraa suurad makiya ah suuraddaasi oo ka warramaysa runtii qiso ay culammadu yidhaahdaan waxay u ahayd nebiga deganaanshiyo iyo ma'aalka qadiyadiisu ama cidhibteedu waxay noqon doontoo la daareensiinayey waayo suuraddaasi waxay ka warramaysaa qisadii soo kala martay fircawn iyo nebi muuse bilow ilaa dhammaad ayaa qisadaasi soo socota waxay kaloo ka warramaysaa qoomam horoo tiro badan oo nebiyadoodii diiday oo la halaagay nuux iyo caad iyo hamuud iyo qowmu ibraahim iyo qowmu luut iyo asxaabu layka waxaasoo dhan bay ka warramaysaa waxay kaloo ka warramaysaa un suuradda tani dadka fiicani cidhibta fiican inay iyagu yeelanayaan ama ay ku dambaynayaan nebigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu bilaabay dacwo calana inuu sameeyo oo dadkao dhan loogu yeedhayo dacwadaasi aqaaribtana inuu ka bilaabo yaa qaraaba u ahaa nebiga calayhi salatu wasalaam quraysh oo dhami qaraabadiisa yahay axaadiista markaa inuu laba goor maalin intuu casuumad u sameeyey inuu isugu wada yeedhay oo dabeetana abilahab uu hadalka bilaabayba uu yidhi waa kuwan adeerada iyo tolkaayoo dham isu yimaadeen iyo waxa aad wadda iyo rabshadaa dadka ha geynin oo dagaal aanu reerku geli karin ha gelinoo yacni inuu hadalkiiba isagu ka hor bilaabay oo markaanu maalintaa waxba odhanin nebigu maalin labaad inuu haddana isugu yeedhay maalinta labaad markaasi inuu ilaahay u mahad celiyey oo bacda shahaada uu la hadlay qaraabadiisii yarayd weedhuu ku yidhi inay ka mid ahayd ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanku tolkii uma been sheego yani reeru de hadday nin sahan loo dirto la yidhahdo bal meesha roobka heliya wax soo meel abaaraba intuu soo arko ma yidhaahdo reeraha soo rara waxaan soo arkay yani lagama filayo sahan la dirtay intuu soo noqdo inuu been akriyo waayo marka horeba sahanka in reer ku guuraa loo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi bay leeyihin qabiilkiisaa yaro hoose markuu la hadlayay ina araa'ida laa yakdibu ahlah sahanka cidda loo dirtaa dadkooda uma been sheego ee ilaahay baan ku dhaartay aan alla kala jirine ilaahay rasuulkiisii baan ahay idinka gaar loo idinku soo diray dadkoo dhanna loo soo wada diray ilaahay baan ku dhaartay waa dhiman doontaan sidaa u seexataan waa laydin soo bixin doonaa sidaa usoo toostaan waana laydinku xisaabi doonaa waxaa camal samaysataan janno iyo naar abadiya midunbaa geli doontaan riwaayaadka daciifkii waxay tilmaamayaan maalan ama riwaayaadka ahlu taariikhu ay wariyaan abu aalib baa u jawaabo wuxuu yidhi aad baan u jecelay inaan ku caawiyo nasiixadaadana waan aqbalay run inaad sheegaysana waan ogahay tolkaana waa kuwaas oo waxay ku kulansan yihiin inaanu mid adiga kaa mida nahay laakiin naftun baan yaro jeclaysanayn buu yidhi cabdilmualib diintiisa in laga weecdo naftun baan jeclaysanayn yacni waa kuu gargaarayaa oo hiilkaad iga rabto waad iga helaysaa laakiin diintii reerkaan iska haysanaya anugu markay diin tahay halkii reerkaan joogaya laakiin inankii dee reer ka dhashay baato waad helaysaa gargaarkii waad iga helaysaa abulahab ba hadlay bay yidhahdeen oo isaga yidhi haadaa wallahi sawa waa ceeb waxaan aad wadaa aba aalib iyo maxamedo waxay isugu jiibinaysaan waa ceeb abi aalib ow reerka odagiisii baa tee inankaa yar inta in dagaal aynan qaadi karin aanu ina gelin maanta gacanta qabo abi aalibna wuxuu ugu jawaabay bay dhahan wallahi lanamnacanahu maa baqayna ilaahay baan ku dhaartay waan waxbaan ka celin inta aan noolahay inaan cidi taabanaynin calaa kulli xaal waxay tilmaamayaan ninkan tolnimadii iyo qabiilkiina inuu ugu hiiliyey rabay inuu u gargaaro wiilkan yaroo adeerka u yahay laakiin diin ahaan muu qaadanin riwaayaadkaasi inta badan waa mashhuur fi taariikh laakiin culamaa alxadiid wax sanad fiican u sheegaya maan arag ama xadiidka jabalu safa isagoo xadiid saxiixa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha aayaadkani markay ku soo degeen ayuu soo baxa dabeetana wuxuu yimi buurtan yare safa la yidhaahdo safida iminka waa tan masaajidka gudihiisa labada kurood inta la dhex socdo laakiin berigii hore kacbada iyo dee safa daara iyo magaala udhexayn jirtayba yani meel aan kala durugsan oo buuro yaroo markaa banaan iskaga yaalo kale ayaa waakay meeshaa yar buu yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu qayliyey yaa sabaaxaa waa sabaaxaa buu ku qayliyey weedhatani cinda alcarab waxay u dhigantaa un hayaayda soomaalida oo kale waa qof wax arkay ama balaayash arkay ama war dhiilo leh ama wax qof raba inuu sheego oo meesha intuu istaago marada loloo hayaay ka soo kacaa yidhaahdo un warkii weeyaan carabtu say u isticmaali jirtay
halkaasuu istaagay dabeetana waa qayliyey qurayshi markaa yeedhatan way ka yaabtay war yaa qaylinaya waxaa la arkay inuu moxamed yahay dee beenna laguma baran alamiin saadiq baa loo yaqaan war waxa maanta ka dhawaajiyey baa la yidhi waa arrin khatare ee inagu yaacsiiya dadkii oo dhan baa isu soo baxay baa la yidhaha dad aad u badan qabiil aan cidi ka imani ma jirto markii la ogaaday inuu nebi yani moxamed bay iyagu rumaysayin inuu nebi moxamed yahay calayhi salaatu wasalaam ayaa cid waliba timi xataa abilahabkii mucaaradka ku ahaa baa yimi meeshiisi soo taagay markii la wada yimi ayuu qabiil qabiil u kala qaaday yaa bani fahr ibnu ma yani waa quraysh ayaa qabiil ahaan quraysh buu ka soo bilaabay markaa waa reer bani faharow reer banu cadayow reer banu fulanow reer banu qabiilkii buu kala saarsaaray haddana hoos u sii waday reer banu cabdimunaafow reer banu cabdilmuطalibow ilaa rawaayadka qaarkood ay sheegayeen inuu soo gaadhsiiyey maxay xagga hoose faatima iyo cabaas iyo meelaha inuu sii gaadhay si uu sii kala waday wuxuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi intuu u yeedhay qabaa'ilkii oo dhan ara'aytukum low akhbartukum ana khayla bilwaadi bisafxi hada aljabal turiidu an tugiira calaykum akuntum musadiqiy waar may rumaysanaysaan haddaan idiin sheego war odhanaya buurtan dacalkeeda dambe fardaan kusoo arkayo ciidamo waa laydin gelaya ma iga rumaysan lahaydeen yani wuxuu rabaa inuu u tilmaamo marka hore khabarkiisa siday u arkayaan warkuu sheego war aydan ogeyn oo ah buurtaasi waxa ka dambeeya aydan arkaynin haddaan ka warramo oo sheego in col soo socdo laydin gelayo warkaa ma iga qaadanaysaan oo ma rumaysanaysaan waxay yidhahdeen nacam maa jarabna calayka kadiban saanan kuu rumaysan ba yidhaha managaa weligaaba wax been la yidhahdo kugu arag maa jarabna calayka ilaa sidqa run waxaan ahayn kuguma naqaano markaa saanan kuu rumaysan waa tawti ah waxay culimmadu inta badan ka warramaan yani asxaabi dacwa wax fiican bay yidhaahdaan tawti ah inay u sameeyaan ta kale qofka hadalkiisa waxa la aqbali og yahay marka hiqa lagu qabo yani maalan tusaale iska fudud cid mansilatu shaykhuukha dadku ay u rumaysan yihin cid ay sheekhnimo u rumaysan yihin hadduu war sheego dadku markiiba way wada qaadanayaan nin dhalinyaro oo xataa haba cilmi badnaade hadduu intuu soo fadhiisto war akriyo wallaahi nin dhalinyaro baa midkaa sheegaya in la yidhahdo mooyaane waxaad moodaa dadka inaan hore uga daadegeen waayo weli kalsoonidii ahaa ninkan inuu sheekh yahay ayaan dadku in badan mala qaadanin saa daraaddeed waa laga yaabaa in runba ha ahaatee wuxuu sheegayey in laga soo yaro warwareego marka hiqadu kalsoonida in qofka lagu qabo wax sheegaya wax weyn bay ka tahay sida awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam awalan kalsoonidoodii u dhistay oo wuxuu leeyay war may rumaysanaysaan haddaan halkaa idiin sheego bal saan idinku ahay agtiina waxay sheegeen markaa inay ku kalsooyin inuu aqbalayaan akhbaartiisa wuxuu ku yidhi markaasi fa innii nadiirun lakum bayna yadaya cadaabin shadiid haddaba waxa aan idinka digayaa oo aan ka digayaa cadaab kulul baan idinka digayaa idinka horaysa oo idinka dambaysa weedhatan markuu yidhi oo uu saan ugu dhawaaqay oo weliba midhmidh u kala qaaday cidii dheg badan uma taagin bale wuu ku sii waday baa la yidhahdaa wuxuu u tilmaamay war qurayshay war ilaahay naftiina ka iibsada cadaabkaasi naftiina ka badbaadiya war anigu waxba ma hanto laa amliku lakum min allahi daran walaa nafca walaa ugni cankum min allahi shaya ilaahay agtiisa iminkaba anigu waxba idinkama taro ninkii ilaahay rumeeye ee raaca ayaa ilaahay badbaadinaya laakiin nebi maxamed baanu tol ahayn ama qaraabo ahayn ama tolnimo la wadaagna waxba ku heli maysaan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam ee yeeloo ilaahay raaca markaasuu weliba qabiil walba hoos ugu sii kacay ilaa xad bay yidhahdaan culimmada uu gaadhsiiyey cabaas ibnu cabdilmuطalib ilaa uu soo gaadhay ilaa uu inantiisii soo gaadhay baa la yidhaahdaa oo yidhi faatima bintu maxamedey waa kuwa xoolahaygiiyo waxaad doonaysa i weydii wixii aan hayo waxba kaa siinayaay laakiin naftaada cadaab ka dhowro daad adigu diidda inaad cadaab iska ilaaliso waa ina nebi maxamed cidi cadaab kaaga dayn mayso ee cadaab iska dhowr buu ku leeyahy abilahab wuxuu ahaa nimaana la barakaynin nebi maxamedna adeer rumow ah yani kuwa nebiga ka fogaana ilaahay waa ku anfacay diintii abilahab oo adeerkii rumana alla kuma anficin abilahab markaasi wuxuu yidhi markay dadku saasu u sheegay tabban laka saa'ir alyawmi ala hada jamactana waar hoog maalinta inta ka hadhay ma waxaasaa dadka isugu yeedhaysay waxaan moodaya yani wax kale oo war inaad sheegayse waxaad la hayaay lahaydee dadka isugu yeedhaysayba ma intaasay ahayd buu ku leeyahay hooge dabeetana waxaa soo degay aayaadkan qur'aan ee ilaahay leeyahay tabbat yada abi lahabin watab maa agnaa canhu maaluhu wamaa kasab
sayaslaa naara data lahab wamra'atu xamaalat alxaطb fii jiidiha xablu min masad. suuraddanina runtii waxay ka mid tahay waxyaabaha mucjizaadka ee qur-aanku inuu xagga alle ka yimi lagu rumaysan karo. waayo halkay carabtu yidhahdaan beedkiisii buu sallad qura ku wada riday, nebigu beedkiisii oo dhan sallad qura ku wada riday. markan aayaddani maxay sheegaysaa? quraysh dad badan oo gaala ah baa ku jiray, soo maaha? yani waxaa muslimkuba wuu yaraa. abilahab gaar baa isaga loo tilmaamo, waxaa la yidhi adigu naartaad gelaysaa. abilahab wuu awoodi kari waaye mar qura inuu yidhahdo laa ilaha illa allah. hadduu laa ilaha illa allah mar qura yidhahdo maxaa dhici lahaa? in la yidhahdo qur-aanku waa been iyo maxamed wuxuu sheegaya ilan kan waxaa tihi naartuu gelaya waa kan laa ilaha illa allah loo islaame oo jannuu geli doonaaye, wuxuuba waa dumi lahaaye. laakiin waa mucjizaadka, yani qur-aanka waxyaaba tilmaamaya inuu mucjis yahay bay tilmaamaysaa. abu sufyaan lama odhan nin naar baad gelaysa isagoo kuwa ugu adag ka mid ahaa, bale 21 sannadood buu nebi maxamed la dagaalamayay. 23 sannadood ee waxyigu soo degayay, 21 sannadood qaa'id gaale hogaaminayuu ahaa. haddana ilaahay unbaa tawfiiqda waafajiyo 2 sannadood ee u dambeeyey unbuu isdabaqabto u iska islaamay. dabeetana saxaabi buu noqday, islaamka u jihaatamo dagaalamo. markii dambe waa kaa yani abu sufyaan hadduu ahaan lahaa ninka la yidhaha tabad yada abi sufyaanin, waxay noqon lahayd in la yidhaha qur-aanku been buu sheego dee wuxuuba ma aha wax saxa. idan waxay leenahay aayadda suuraddan yari waxa ay tilmaamaysaa qur-aanku siduu mucjis u yahay. xataa basharkii meesha joogay ayaa la yidhi kan isagu weligii islaami maayo, fi naar baanu gelaya. dadkan kale si raja way qabaan oo wax islaami karoo badani waa ku jiraan. ficlanna dad badan baa dadkii islaamay, laakiin isagu sidiisiibuu ku halaagsamay oo ahlu naarkiisii ku yihi. nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ayuu dadkii oo dhan u wada gaadhsiiyey. ilaahayna wuxuu farayay fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin. ku dhawaaq baa la yidhi oo caddee kala dilaaci waxa alla uu ku faray subxaana wa tacaala, gaaladana iskaga jeeso. sidii ambiyada kaleba u lahaayeen yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru, taas baa la yidhi caddee ou nabigu calayhi salaatu wasalaam bilaabay. dacwadii jahriga ahayd markay bilaabantay, waxaa bilaabmay markaasi dacwadii kasoo horjeedkeeda ahayd in loo ololeeyo sidii loo baktiin lahaa. awal waxay ahayd dee afraad, qof in loo tago oo islaamnimada loo sharxo oo ama gala ama diido bes. qof un baanay awal u socotay. dadkaa horena qof bay usoo islaameen. iminkase waa si calana inuu nebigu wax u sheego calayhi salaatu wasalaam, inuu tago goobahay ku shirayaan, meelaha lagu sheekaysto, dhulka la isugu yimaado, kacbada iyo meesha yimaadaan, dhulkay sanamada ku caabudaan, meel walba in laga sheego si calana. marka waxay noqotay dacwo ololaheeda wadata oo dib u bilaabantoo loo ololeeyey oo si cadna u socota. nimankii carabeedna markaa waxay bilaabeen in la isu tago sidii loo waajihi lahaa laga fekero. walidaalika baa waxaa bilaabmay isu tagyadii ahaa maalan qaababkii looga hortegi lahaa in la sameeyo. maalan waxaynu naqaanaa culamada taarikh inay soo arooriyaan inay shireen carabta oo wax la isweydweydiiyey, oo waxyaabaha la isweydweydiiyey ee ka mid ahayd waliid binu mugiire oo kale ayay yidhaahdaan baa isugu yeedho waxay yidhahdeen war maxaynu nidhaahnaa ninkan, waktigii xajkiina waa soo dhowyay. jaahiliyadii carabta weli way xajaysaa oo nebi ibraahim dee diintii uu ka tegey weeyaan. marka waxaa la leeyahay war wakti mawsamaa soo dhowo maki buuxsami doonto. dee hadduu dadka intuu wixiisan uu bandhigo uu dad helana waaba laynaga badan karaa, ninkani xoog buu helayaay. yuu xoog helina dadka kale aan ka hortagnay maxaynu nidhaahnaa, maxaa dadkii lagala hortegaya? waxyaabaha isweydiinaya waxaa ka mid ah aan idhaahno waa gabaya, waa falalow, waa sixiroole, waa caynkan. waa kuwa culamaai siira sheegay inuu mid kasta waliid binu mugiire diidanaayo u lahaa ma jirto. kanna maaha hadalkiisana, hadalkani hadal kaahin waan aqaanaa warkii iyo sixiroole iyo falalow oo warkii maaha. ma aha ninkani nin waalan ma aha sixiroole iyo warkii maan aqaana. gabayaa waan aqaanaa iyo gabayada sida badaha gabayga oo dhan la tiriyo dhan waan aqaanaa. mid kasta oo bad gabaya waan garanaya, waxaan wadaa bad gabay maaha. aakhirkii bay yidhahdeen de bal waayo haddaa maxaanu dhahnaa. waxay sheegeen oo dhan markuu radiyey ayay isagii yidhahdeen de bal waayo adigu tala keen haddaba maxaan idhahnaa. wax kala garan maayo buu yidhi waxa ugu dhodhow inaynu idhaahno maxay, waxaan waa sixirkuunbaa malaa la qaatay xaggiisa inaynu marroon idhaahno, ninkani waa sixiroole. waana suurat lmudathir qaybaheedan dambe sababtii kusoo degaysay culammadu sheegaan. inahu fakara waqadar faqutila kayfa qadar uma qutila kayfa qadar uma nadar uma cabasa wabasar uma adbara wastakbar faqaala in hada ilaa sixrun yu'thar in hada ilaa qawl lbashar. waxa la yidhaha weedhaa intay qaateen ayaa dadkii laysu qaybiyey. markaa waxaa la yidhi dhulka maka laga soo galo, maka waa buuraley,
maadaama dhulku uu buuralayayna wadooyin yaroo kooban unbaa jiro oo laga soo galgalo dhulka laga soo galo dhan dad ha loo qaybiyo dadka ka hortaga oo wacyi geliya oo faafiya propagandadeena tan oo been fakatay dee runimo gaadhadii un weeyaane beentan ha la sii daldalo inta aanu warkani gaadhin beentan iyo faafinteeduna runtii waa asaaliib soo jireena xataa kuwan dambe ay rumaysan yihiin yani maalan qaacidada iclaanka bay idhahdeen ugu weyne la rumaysan yahay waa un warka in lagu celceliyo dadku aakhirka uu rumaysanaya b b c daasi markay idinku wado waxay sheegtay dhan run baa imika la isaga haystaa waa daliil b b c daa sheegtay run buu haystaa waxay b b c oo sheegtaa inay diinta ka mid tahay mashkiladda waxa weeya waa ku celcelinta tan waayo waxaa la yidhaha ra'yiga kan maalan nadariyadda iclaamiga ee ku celceliska dunida waxay uga dambaysaa coblas nin la odhan jiray coblas waa wasiirkii iclaamka ee hitler baa la yidhahdaa hitler wasiirkiisa iclaamku waxay ku talagaleen ciidan baa jabay iyo waxaan in la sheegin in been dunida lagu harqiyo dabeetana wariyaashii buu ninkani wuxuu kula ballamay maadaama dawladdu dee dawladda naazi oo adag ay ahayd oo isku xidhan beenta sheega laakiin ugu celceliya dadku way rumaysanayaan une mujarad buu ninkaasi amar wuxuu ku bixiyeen ku celceliya marka waxay dhahan waa qaacida iclaamiya dadku waxay u baahan yihiin in warka loogu celceliyo akhiiran waa iska qaadanayaan haddii dhowr goor lagu celiyo ninkaasi waa irhaabi dadkao dham irhaabay kuu qaadanayaan waa mujarad un in warkaasi uu noqdo war lagu celceliyo inuu noqdo waxay qaateen nimankan carbeed inay meelahaasi oo dhan tagaan beentaasi la faafiyo laga horaysiiyo culamaai taarikh baa sida usoo wariya laakiin ficilka maalan abulahab oo kale waxaa la yidhahdaa dadka daba socday musnadu imaamu axmed saa ku qoran oo kale inuu ka mid ahaa isagu raggii baxayay bale inuu isagu nebiga dabageli jirayba isagu wuxuu yidhi aniga igu daaya idinku warka kale qabaa'ilkan iyo waxaan imanaya kusii faafiya xajka marka lasugu yimaado isagana aniga ii daayo inuu isaga daba soconaya marka waxa la yidhaha intuu nebiga daba galo ayuu nebigu wuxuu tegayay manaasishii dadku ay degayaan suuqyadii dadku ay kala degayaan cukaad iyo majana iyo dilmajaas iyo waa meelihii markaa carabta ay degi jirtay marka la isugu yimaado xajka meelaha la degaa xajajka iyo meelahan markay soo maraan suuq baac mushtar buu ahaayo wixii dunida la isaga keeno o dhan baa lagu kala iibsadaa wuxuu kaloo ahaan jiray meel qabaa'ilka carbeed isugu faanaan oo la isugu afdhigto qabiil waliba gabayaagiisi iyo aftahankiisuu keeni jiro ama khudbad ka jeedin jiray ama gabay akhriyi jiray oo gabayadaasi ay ahaan jireen markaa la yidhaha wallahi qabiilka dee reer hebel gabayaagooda loo babac dhigi kari maayo oo meel adabku la isugu soo bandhiga bay ahayd markuu nebigu daba socdo ee uu reer meel tegan u yimaado bay yidhahda ilaahay ka cabsada waryaa wax iga dhicinayaan ilaahay diintiisa dad gaadhsiiya awilaha baa daba taagan oo leh anaa adeerkii iyo wiilkan yar waxba ha dhegaysanina waa wiil yaroo bidcooloo diinta ka baxaya buu yidhahaa saabi bay ku sheegi jireen saabi waa qofkii diin hore ka baxay ee diin dambe gala yacni waa wiil yaroo bidcoole ah oo ka tegaya anaa adeerkii iyo waxba ka dhegaysanina buu la daba taagna asaaliib badan bay adeegsadeen runtii asaaliibtaasi dacwada lagaga hortegay waktigaasi waxaa ka mid ahaa in lagu jees-jeeso lagu cayaayiro istihzaa loo muujiyo lagu qosqoslo la maago laga dhigo kaanamaa qof waalan inuu yihi qofka haddii mujtamac oo dhami meeshaad soo fadhiistaba haddii lagugu qoslo oo lagugu boqo waad waalanaysaa akhirka yani qof waalan oo kale ad kaanaysa dadkan xataa waalan dadka waa aragteen isagoo marka hore iskaba yaro miyir qabaan xoog waalan bay carruurta iyo dadka iyo daba buuqaano markaasuu kasii wada dhigaa adigoo miyir qaba haddii kuwa lagu itixaamood waalanaysaa runtii waxay isku dayeen markaa in loo sameeyo dacaayadda tana ilaa xad in suuqa laga saari karo walidaalika waa ka dagaaladaas oo dhan qur-aanku ka warramaya dagaalka iclaamiga ah ee ilaahay qur-aanku leeyay waqaaluu yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikru innaka lamajnuun bay yidhahdaan ilaahay ka baqa buu leey markaas leey kan qur-aanku ku soo degayow nin waalan baa tahay bay leeyihin waxyaabay ku lahaayeen waxaa ka mid ah sukhriyada iyo kadibka keenayay wacajibuu an ja'ahum mundiru minhum waqaala alkaafiruuna hada saaxirun kadaab waxay la yaabeen baa ilahay yidhi mid digaya inuu u yimaado markaasay gaaladu waxay yidhahdeen waa sixroole beenaale ah ayay yidhaahdeen waxaa ka sii dana sida isha loogu mudaye loogu xaqiray yani hadalka marmar baa ficilka iyo hamziga iyo ilkumudka iyo carabka uu kasii foolxun yahi walidalika ba ilahay wuxuu leeyay wain yakaadu aladiina kafaruu layuzliquunaka biabsaarihim waxaabay ku dhawaadeen baa ilahay leeyay kuwa gaale inay isha kugu legdaan ba alla yidhi lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun bale istihzaagoodu wuxuu gaadhay inay yidhaahdaan ilaahay ma cid adiga dhaanto u soo dirtaabu waayo intuu agoon yara la soo dirayo odayadii qorayshood oo dhamme way joogaane maa qoraysh iyo dadkii hantiilaa iyo dadkii waxayste iyo waayeelka maxaa loo soo diri waayo inta inan yaroo agoon iyo raja kusoo koray alla soo diranayo waa ka alla ku tilmaamaya markaa markay iyagu lahaayeen
ma ilaahay ma adu kugu manaystay bay ilaahay anaga dhexdayada waa ka allana ugu jawaabay alaysa Allahu bi'alama bishakiriin war ilaahay miyaanu ogeyn cidda uu mahadnaqaysa ciddu isagu dooranayo miyaanu isagu ogeyn waa ka ilaahay quraanka ka waramay in alladina ajramu kanu min alladina aamanu yadhakun wa idha marru bihim yataghamazun wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wama ursilu alayhim hafidin jeesjeeskan iyo cayaartan iyo ku qosalkan iyo buuqan iyo waxani waxay gaadheen dee xad qofka caadiga waxaynu dhaw la waali karaa walidaalka baa ilaahay quraanka wuxuu alla ku leeyahay nabiga isagoo tilmaamaya mashaaladan dhibta ay ku hayso walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun baa ilaahay waan ogahay baa la yidhi subxaanahu wa ta'ala ila laabta ku xidhiidhtoomayso waxanay ka sheegayaan sidan ay ku dacaadeynayaan iyo waxaan ka sheegay haddii mujtamac waliba kuwii kuugu xigay tol iyo qaraabaad lahayd haddii alla kugu diro ay iyagu ka daba shaqeeyaan oo saa lagu dacaadeeyo magaalada dhan ka soo horjeesto dadka dhan ku wada dacaadeeyo nafta isugu ka imanaysa ilaahay laakiin wuxuu tilmaamay markii loo sheegay walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun markii alla tilmaamay waxa kale oo alla uu sheegay suurat al-hijr wuxuu kaga bixi lahaa deetana waxa la yidhi fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa'bud rabbaka hatta yatika al-yaqin ilaahay wuxuu yidhi iska tasbiixso oo ilaahay u sujuud oo xidhiidhkaad alla leeday badi waxaan kaloo dhammi waxba noqon maayaan idan qofka muslimka ahi sanad uu ku tiirsado balaayo dhammi hadday haleesho sanad lagu tiirsado dee waa allah subxaanahu wa tacaala ilaahayna qofka muslimkii wuxuu kula hadlaa waa markuu salaada tukanayo qofku markuu salaada tukanayo ilaahay buu toos ula hadlaya ilaahay baana kuu jawaabaya سوى حديث الصحيح أو النبي كتب المامي عليه الصلاة والسلام سادرات ديت بقى إلهي وحليه تصبيح سوء سجود وإلهي عابد إلا أنت جيردو كاغا إيمان يسهل كاغا تشوف إنا كفيناك المستهزئين بقى إلهي كون كوتشيس جيسي أنا كافينا إيه إن سيدا يال بقى إلهي سبحانه وتعالى إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون وحكوا الله ووت المامي النبي عليه الصلاة والسلام طريقا إنه يي طريق أنبياء ومري جرتي marka inaanay kaliga ahayn dhibtuye waa wado mu'abbada yaani waa wado la budliyay oo hortaajira waa soo maray nabiyadii hore ay soo mareen adkaysa la leeyahay walidaalka ba ilaahay wuxuu leeyahay walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik fahaqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un adiga rusushii ka horeysayba waa lagu jeesjeesay ba ilaahay laakiin baladu wuxuu bay ku dambaysaa ba ilaahay kuwan jeesjeesaya ee adigu dariiqaagaasi hay حرب الدعاية بدن ويودين waxay kala wadeen yani xuruub tira badan bay nabiga la galeen kaleey salaatu wasalaam waxay kala wadeen harb shubahat itharatu shubahat iyo dacaayad been oo kala tira badan in la sameeyo oo dadka sidii caamada loo shaki galin laha mar waxay dhahaan waa adqaas oo ahlam maxamed habeenkii uu buriyoodayo deetana subaxii buu intii isku soo toostay bay yiraahdeen ayuu la yimaaday yiraahday waa leeso waxyooday bal iftaraahu bay lahaayeen وصوب بين أبورته إنما يعلمه بشر ضد بوصور دق بينادين ما لها سكسور دق وحقا وضد كسور دق إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون قار كلا وجر قاري بينادين أو شمن باو حشك شجية وحبي شجعان قار كلا بلا واحد كجران كرتا حتى الدعاية نسيدا يقف في ضدك وأقبلي أحد الصحابة وحكوا إسلامي مثلا ضمات صحابي الله يرضى وحو قبل الإسلام dadka jinka ka saara ayuu damaadaha xadiiska xadiis saxiixa damaad marka waxaan maqlay buu yiri ninkaasi in jin dardareen wararkii la soo gaarsiiyay waxa laga dhaadhicay maxamed in jin dardaray nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam marka waxaan maqlay buu yiri ninkaasi inuu xanuunsanayo jin dardaray dabeetana uu soo lugayo waxaan u socday buu yiri war bal miskiinkaasi dadku ay ku qaylinayaan jinka ka saartay magaalada Makka wuxuu yimi markaasi inuu maxamed jinka ka saaro kadibna waanu iimo waxaan ku yiri buu yiri nin dhakhtaraan oo tabiiba jiman kana dadka waan ka saara deey dhibtaan waa lagu sheegaya aan bahalka ka bixiyo ka farsameeyo warkiisii markuu akhriyay ee uu sheegtay ayuu nabiguna alayhi salaatu wasalaam la hadlay nabigu alayhi salaatu wasalaam marka xamdaladii ku bilaabay in alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu xamdaladu akhriyay markuu ku akhriyay ayaan waxaan yiri aacidhu iigu celi haddana wuu ku celiyay buu yiri markaasaan yiri buu yiri haddana aacidhu iigu celi uu ku celiyay buu yiri markaasaan waxaan gartay buu yiri warka ninkani sheegayo inaanu ahayn warkii jibanka iyo sixroolayaasha iyo baabkan kaahinada iyo farsamadan aqaanay warkeedii
inaanay ahayn baan gartay buu yidhi markaasuu islaamay oo dadyagii ugu horreeyey islaamuu ka mid yahay saxaabadii saabiqiinta ahaa ayuu ku jira dhammaan sababtu uu islaamayna waa nebi maxamed jidka ka soo saar buu is yidhi yacni waxaad garan kartaa markaa dacaayaddu siday u faaftay ama dadku uu qabuulay waa mushkiladda imika iclaamka reer galbeed inagu hayoo kale reer galbeed iyagaa dadka dilaya waxay doonaan samaynaya iyagaana warramaya oo wixii jirayna iyagaa ka sheegaya dadka u sheegaya dadku waxay sheegayaan unbuu run u haystaa halna kama run aha inta ugu badani waa been dee ilaahayna marka horeba wuxuuna yidhi wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu faasiq hadduu war idinla yimaado iska hubiyaa la yidhi kaafirka isaga kiisa maxaad u malayn markaa innaguna kaafirka inugu hor rumaysan ogni waxay sheeganayeen iyagu markaasi waa asaatiirulawaliin bay lahaayeen waxaan ku soo degay bale waa ka qur-aan soo degay ilaahay uu masaladan ka afinayo markay yidhaahdeen jiman baa ku soo degay iyo ra'yi baa la socda carabta waxay rumaysnaan jireen nimanka gabayaagooda inta badan in wax loo sheeg sheego oo jin kalaa la socday odhan jireen gabayaaya haddaad aragta bay dhahay jiman baa wax sheega saasay rumaysnaan jireen marka waa ra'yi fulaan baa la odhan jiray oo la socdaa wax sheeg sheegaya ilaahay baa markaa qur-aan soo dejiyey leh hal unabi'ukum calaa man tanazzalu shayaaiin tanazzalu calaa kulli afaakin atiin baa ilahay yidhi waxaa ma idiin warramaabaa ilahay yidhi kuwa shaydaamadu ku soo degaan sixroolayaasha iyo beleda iyo kuwan faaliya iyo waxaan shayaaiintu ku soo degaan waa calaa kulli afaakin atiin mid kastoo beenaalo ah oo dembi badanaa buu ku soo degaa ee bal eega nebi maxamed oo ma ku haysaan calayhi salaatu wasalaam mid beenaalo oo dembi badanaa taarikhdiisa ma ku haysaan siiradiisa ila waa haysaane idan waxa weeyaan ma aha shaksiyad uu shaydaanba xaggeeda usoo kici karo kuwa shayaadiintu wax ku akrinayaan waa inay sifaadkan yeeshaan waxay badiyeen nimanka carbeed oo in badan isku dayeen inay dadka yidhaahdaan ama waa waalan yahay ama waa gabaya ilaa qur-aan soo degaya ilaahay uu leeyahy maaha gabaya oo ilaahay leeyahay shaacir iyo majnuun toona maaha bale ilaahay wuxuu xataa qur-aanka lagu sifeeyey sifaadka gabayaaga lagu yaqaano 3 sifaa lagu tilmaamay والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون saddexdan sifo khaasiyadood bay leeyihiin baa la yidhi bal ka eega nebi moxamed ma ku haysaan waxaa la yidhi shucarada had iyo goor waxaa raaca dadka qawqaayiinta ah jamaahiir iska masaakiin unaan wax badan dadaan kale ogeyn ayuunbu intuu hadal isugu toostoosiyo qurxiyunba ka daba sacabiyo raaca waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay kooxda shucaradu dadka markaa dabagalaa waa noocaasaa la yidhi fanaaniinta iyo noocaasi inta ugu badan leh dumar iyo carruur iyo dad waalanuma daba socdaa bal u fiirsan adigu mid gabya ama heesa ama noocaasi ila aladiina aamanuu baa ilaahay ka soo reebay koox yar baa la soo reebay in yar baa laga istitnoodoo la yidhi kuwaas waa ka hadhan yihin laakiin inta ugu badan leh waa nooca kan waxaa kaloo waa la sheegay subxaana wa tacaala alam tara anahum fii kulli waadin yahiimuun waa dad meel walba iska dhumbada wuxuu arkaba wax ka sheega nebi maxamed kaama yahay baa la leeyahy alayhi salaatu wasalaam had iyo goor dadka gabayaagii waxay u badan yihin dad tartaarina dad hadal badan oo sheeko badan oo wax walba wax ka sheego hadla una afka isku darin waxaa kaloo ilaahay uu ku sheegay waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynna way sheegtaan faanuun gabayaagu waa faan badan yahay had iyo goor hadduu reerkooda ammaanayo reerkooda bahalladii dadkao dhan cunay buu ka dhigaya hadduu isagu is ammaanayo yani nin khatara buu iska dhigaya waa waxaanu samaynoo tiro badan ayuu sheegtaa ilaahay markaa wuxuu yidhi waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay samaynoo tiro badanna way sheegtaan nebi maxamed miyaa sifaadkaa ku haysaan baa ilaahay leeyahy yani ma aha sifaadkan oo dhan laguma hayo sifaad waan wanaagsan baa lagu haya qur-aankuna in badan ayuu xalaaliya waxay shubahaad soo arooriyeen uu radiyey shubahaadkaa tirada badan le ay soo aroorinayeen inta badan waa shubahaad ku salaysnaa madmadow in dadka laga geliyo diinta gaar ahaan tawxiidka iyo risaaladu nebi maxamed waday iyo inuu bacthi jiro wakti dambe oo laysa soo saarayo qiyaama inuu jiro iyo qur-aankan inuu xagga alle ka yimi waxaasay dadka shubahaadka gelin jireen mar ay yidhaahdaan ilaahay muxuu malaa'igu soo diri waayey iyo mar ay yidhaahdaan bal rasuulkan suuqa idinla wareegaya suuqa isba ka xoogsanaya haddana nebiga idiin sheeganaya eega yani waxay rabaan inay yidhahdaan ma lihada rasuuli ya'kulu طacaam wayamshi fi laswaaq bay yidhaha waxay rasuulkan cunada cunaya ee isba suuqa marmaraya ilaahayna subxaana wa tacaala in badan buu waxoodan radinayay ilaa xad beenta ay abuurteen ay yidhahdeen maa anzala lahu calaa basharin min shay ilaahayba dadka wax kuma soo dejiye maxaa malaa'ig loo keeni waayey bay yidhahdeen isagoo ilaahay radinaya waa kale qul man anzala alkitaaba aladii jaaa bihi muusa nebi muuse kiisa way rumaysnaayeen iyagu haddaa kii hore muuse sidee yaa keenay baa alla leeyay subxaana wa tacaala miyaan bini aadam ahayn cidda loo soo dhiibay
وكان سبحانه وتعالى كنت المامية موسى إنه رسولها نبي محمد إنه الرسول يهي ولا مديه مروح إلى هايين أنا بني آدم كلهم يدبان نيمان الرسول النقنة إلهنا وكوت الماما يا الله يعلم حيث يجعل الرسالة إلهي سجى أقعد الدوران يا الرسول كدقيه إن waxay ahayd un dafiraad la rabo in nabi maxamed la dafiray nabi ibraahim iyo ismaaciil ba way rumaysnaayeen inay anbiyo hore ahaayeen waxay laakiin rabeen inay kolba dacaayad nooca furaan mar ay yidhaahdaan ilaahay muxuu miskiinkaaga yara agoonkaaga ka soo diraya muu labadii oday ee magaalooyinka waaweyn soo diro lawlaa nuzila hada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim bay lahayd labada oday ee waaweyn ee labada magaalo ma mid ka mida la soo dira maxaa adiga lagaa soo diraya ilaahay baa wuxuu ku leeyahay ahum yaqsimuuna raxmata rabbik ma iyagaa ilaahay naxariistiisa qaybiya markay odayaal u qaybinayaan iyo nooca kan ma iyaga ilaahay naxariistiisa qaybiya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala allahu aclamu xaytu yajcalu risaalata yani ilaahay isagaa og cidda uu rasuul ka dhigayo iyo cidda ku habboon inay risaalo qaado marar kale waa ka ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya inay lahaayeen waa maxay rasuulkan suuqa jooga ee xoogsanaya caynkani ma ilaahay ama rasuul soo diro ama hadduu rasuulku xagga alle ka socdo boqoraduba ninka ay soo dirayaan cid u dirayaan xaashiyo dhan baa la raacaya yani madaxweynuhu markuu madidin soo dirayo wasiiro waxoogaa askar iyo dad la socda iyo waxoogaa lacag iyo waxbaa lasoo raacaya muu qof muuqda noqda bay leeyihin hadduu rasuul la soo diray uu yahay waa ka ilaahay ku tilmaamaya inay yidhaahdeen lawlaa unzila ilayhi malak fayakunu macahu nadiira aw yulqaa ilayhi kanzun أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا بينهم نلا السحر والنون يا دب صعطان لكن وحاسودنا إلهي بالردية سبحانه وتعالى وحيابه كهر جيني وحكم دين الدعايات كفرانا إن آخر شرين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أما ذلك رجع بعيد ما الخلايا كنت المامية وحاسودنا إلهي بالردية سبحانه وتعالى oo u tilmaamay bacth bacda almowt waxaa loogu talagalay dee dadku xumaha inay dunida ka samaynayaan tirada badan leh iyo hadhow inay sidaa un lagu wada sinaado qof waliba mar intuu dhinto un de waa xukum isku wada mida kii kunka dilay iyo kii aan waxba dilin geeridu way wada haleelaysaa idan maxaa dhaalimkii maxaa